barasaabka gobolka Maxamed Cabdilaahi Jaamac Booq ayaa maanta kulan isbarasho iyo dardargelin shaqo ah la yeeshay shaqaalaha xarunta gobolka. Kulankan ayaa diiradda lagu saariyay qiimeynta hawlaha maalinlaha ah iyo sidii sare loogu qaadi lahaa hufnaanta shaqo ee xarunta. Barasaabku waxa uu ugu baaqay shaqaalaha inay adkeeyaan wada shaqaynta una midoobaan horumarinta adeegyada ay bulshada u qabtaan, isagoo xusay in mudnaanta koowaad la siin doono tayeynta habka maamul ee gobolka. dhanka kale barasaabka waxa uu kulan la mid ah kaasoo kala la yeeshay alaamaha amniga gobolka Hawd. Kulankan oo ahaa isbarasho iyo dardargelinta amni ayaa looga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa amniga guud ee xuduudaha iyo gudaha gobolka Hawd. Waxaa la isla qaatay in la xoojiyo iskaashiga ciidamada lana dardargeliyo hawlaha sugidda nabadgelyada si looga hortago falalka amni darrada iyo in bulshadu loogu adeego si hufan. Cabdiraxmaan Samriye, telefishinka qaranka Somaliland ee gobolkaasi Hawd.